wasiir dowlaha gaadiidka cirka iyo dhulka ee Galmudug Cabdullaahi Xasan Nuur ayaa dhagax dhigay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hobyo. garoonka ayaa lagu dhisayaa mashruuca la yiraahdo Tabar Wadaag oo ah mashruuc ay iska kaashanayaan hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo CBD iyo dadweynaha reer Galmudug. wasiirka ayaa ka hadlay ahmiyadda uu bulshada iyo deegaanka u leeyahay garoonka diyaaradaha Hobyo. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay u timid maanta laba qorshe u timid maanta. labada qorshe u timid maanta waxay tahay ku inay dhagax dhigto elaboorkii ma taqaanaa degmada Hobyo. labo inay xafiiskii wasaaradda gaadiidka ka furto degmada Hobyo maadaama ay dekadii furantay islaan ahana ganacsi kala duwan ayaa ka soo degaya oo kamid yahay gaadiidka. gaadiidkuna wuxuu u baahan yahay dabcan sharci u baahan yahay. waxa aan sharci lahayn kuma dhaqdhaqaaqi doonaan oo gaadiid ah deegaanada ay ka taliso Galmudug. haday tahay ma taqaanaa madaxda naga sareysa iyo madaxda halka ku suganba iyo dhammaan bulshooyintaba waxaan raali ka wada nahay horumarka ma taqaanaa dawlad goboleedka Galmudug. waxaan dareemayaa bulshadu wali way jiiftaa wayna soo toostay. inta soo toostay waxaan leeyahay bulshada si fiican ha u gaarsiido. hay'adda hadda elaboorka ma taqaanaa xawaha ka howlgashayna waxaan leenahay ha ku daysadeen hay'adaha kale ha ku daysadeen bulshadii u dhalatay halkaana ha ka soo qayb galeen ha u soo dhameystirmeen haddii dalka joogan haddii dibadda joogaanba. dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee Galmudug Axmed Cabdullaahi Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha xarunta degmada oo iyana lagu dhisi doono isla mashruuca Tabar Wadaag. wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud Axmed Cabdullaahi Maxamed ayaa ugu horreyn halkaas ka hadlay. Rahmatullahi wa barakaatuh. salaam bacdi maanta waxaan dhagax dhigaynaa halkan dhagax dhignay xaruntii maamulka degmada Hobyo. ilaahay baa ku mahadsan laakiin waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda CBD iyo hay'adda SSF oo fanka bixisay iyo bulshada iyo maamulka iskaashaday oo mashruuca Tabar Wadaag ku daray qismkii laga rabay. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. sida hadda madaxdii iga horeysay sheegeenba ma aha mashaariicdii u horeysay way yihiin laakiin ku u dambeeyay ma aha. mashaariic badan soo socota ilaahay idamkiis qaybo badan soo socda ka maamul ahaan ku talagala jidada soo socda customiska soo socda iskoolada soo socda waxyaabo badan hadii alla idmo isbitaallo saldhigii wixii oo dhan way socdaan barnaamijkoodu. ilaahay idamkii waa bilow laakiin mashaariic isdaba joog ah ay noqon doonaan ilaahay idamkiis. Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Hobyo.